magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar waxaa maanta si balaaran loogu soo dhaweeyay wafdi wasiir oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ay kamid ahaayeen wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Salmaan Warsame Guuleed iyo wasiirka macdanta iyo tamarta Soomaaliland Jaamac Maxamuud Cigaal waxaana mas'uuliyiintan laga hortagay deegaanka Kirir oo 30 kiiloomitir galbeedka ka xiga magaalada Caynaba dhaweyntooda ka qayb qaatay maamulka gobolka Saraar oo horkacaya gudoomiyaha gobolka Saraar Maxamed Cismaan Xaaji Axmed maamulka degmada Caynaba cuqaal waxgarad haween dhalinyaro waxaana wafdidani deegaanada sida weyn loogu soo dhaweeyay kamid ahaa degmada taariikhiga ee Wadaamago iyo waliba magaalada Caynaba halkaas oo ay dhoobnaayeen boqolaal kamid ah shacabka ku kala dhaqan magaalooyinka Caynaba iyo Wadaamago waxaana ugu dambeyntii wafdidani loo soo galbiyay khayriyada magaalada Caynaba waxaana halkaasi warbaahinta kala hadlay maamulka gobolka Saraar kuwa degmada Caynaba cuqaal waxgarad haween waxaana dhamaantood si isku mid ah u soo dhaweeyeen xubnaha wasiirada waftiga sharafta leh nagu soo boqday halkan maanta waxaanu leenahay soo dhawaada ku soo dhawaada dadkiini ku soo dhawaada deegaankiini ku soo dhawaada meel idinka jecel yihiin baahida gobolka ka jirta maanta waxa ugu daran biyaha ayaa aad loogu baahan yahay macaan maanta biyo la cabo oo macaan waxa noogu sokeeyo gobolka Togdheer alxamdulillaah rabbil caalamiin mar labaad waxaan si iyagana u mahad celinayaa dhammaan dadweynaha reer Caynaba ee sida sharafta iyo xushmadda leh iyadoo waqtigu adag yahay u soo dhaweeyay wafdigan miisaanka leh dib wasiir waa noo timaadeen aad baanu idin soo dhawaynaynaa xaqna waa u leedahay inaad soo booqataan gobolka iyo meel kasta oo Soomaaliland ka mid ah oo kormeer ku tagtaan dad baa degan abaarikeentaya oo barakacayaala oo dadkiiniya habeen dhaweed baan riyooday waan ku riyooday Soomaaliland markay codkani nabadgelyo u dhaco inuu nabadgelyo u dhaco marka ay codkani dhaco golayaasha deegaanka oo kulmiyana u noqdo xusbiga awalba hogaamin jiray maantana sii hogaaminaya labada gole waxa lagu yiri ictiraafkiina Soomaaliland waa loogu dhawaaqaya gobolka Saraar aad baan ugu mahad celinaya aad baan idinku duceynaya waxa weeyaan waqtiga waxaynu ku jirnaa waqti kulul waqti abaar badan bay idin soo martay roobabku way nagu yaraayeen dadkii wuu bukaa waa tamcaan anigu imika waxaan joogay 4 habeen afarta habeen labada barakacaba waan tagay dadku aad buu u jiifaa wuu liitaa dhinac bukaan iyo dhinac baahiyeed sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Saraar Maxamed Cismaan Xaaji Axmed waxaana wafdidani ku soo dhaweeyay gobolka Saraar kulankan aynu runtii ku soo dhaweynayno wasiirada runtii qarankeena Jamhuuriyadda Soomaaliland kamid ah labada wasiirka cadaaladda Salmaan iyo wasiirka macdanta iyo tamarka wasiir Jaamac iyo wafdiga balaaran ay hogaaminayaan waxaynu ku soo dhaweynaynaa haddaynu nahay dhammaan gobolkii Saraar maamulkii degmooyinka iyo kii heer gobol dadweynihii cuqaashii shacabkii ardaydii dhammaanteen waxaan idinku soo dhaweynaynaa qalbi furan iyo laab furan ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Salmaan Warsame Guuleed iyo wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland Jaamac Maxamuud Cigaal waxaana dadweynaha gobolka Saraar uga mahadnaqeen sida balaaran ay ugu soo dhaweeyeen magaalooyinka Caynaba iyo Wadaamago iyagoo sidoo kalena sheegay duruufaha ku gadaaman bulshada gobolka Saraar in si degdeg ah wax looga qaban doono waxa loo baahay waxaan idinku bishaareynayaa in shidaal iyo macdanba aynu rajaynayno dhawaan haddii la yiraahdo in oo wadanka lagu dhifto oo ceelana la qodo macdana la soo saaro insha Allah taala rajo weyn baa jirta laakiin wax walba asaas u ah nabadgelyada iyo soo dhaweynta iyo garabgalka shaqada marka labaad waa ognahay maanta gobolada Soomaaliland gaar ahaan gobolada bariga inay duruuf adag hayso gobolka Saraar inuu dadkii ka guuray inay barkadii ka maran yihiin inay dadkii waqooyi iyo hawd u guuray inay xanuuna jiraan oo soo kordheen arrimahaas runtii warbixintooda waa dhageysanaynay markaanu Hargeysa joognana qoraal baana loo ku soo diray insha Allah taala waa ka hawlgalaynaa madaxweynaha waa gaarsiinaynaa gol ahaanna waa ka tashanaynaa wasiiradan ahaan
ciddii kasta ee hawlahaas qusaysana xoog baynu saaraynaa inay insha allahu tacaala iyaguna ay nala wadaagi doonaan inay nala arkaan duruufaha halkan taagan waa sax iminka halkan waxa socda oo qasabada ku soo jira in halkan laga sameeyo baankii guud ee gobolka Saraar ee bariga laga sameeyo waa ogtihiin Salabaan cilmi siciid Salabaan Kiiko telefishinka caalamiga ee Ariel aynaba